dadka qaar waxay kaafilayaan inaad tahay qof xun halka dadka qaar kalena ay ku malayaan inaad tahay qof wanaagsan balse xaqiiqda ma og xaqiiqda dhabta ee waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala ma tiid sida ay ku malaynayaan balse waxa tahay sida aad isu aragto noloshu waxay u baahan tahay qadar iyo ruux daaf oo ismooysiina dhalaan kana wax kasto aadan jeclayn laakiin hawlin wax kasto horumarkaaga ku xun oo ku liidayo farxad waxay ku bartaa in qof kasto oo saaxiib kula yahay xilliga aad faraxsan tahay balse waxa jirad aan ku faraxsanayn xilliga aad faraxsan tahay mar walba ka xun horumarkaaga wax walba dhibaato ah nolosha kugu dhaco waxa kugu jirto faa'iido weyn dhibaatooyinka adag ee culus waxay ka dhigaan qof adag oo si dhaqso ah isku dhiibin wax kasto dhibaato ah adduunka kala kulanto barnaha uu istaagin qof aan dhibtoon ilaa ma dhibsadeen xanuunadu waxay ka dhigaan qof adkaysi badan midna faadi mid jir ahaaneedba qiyaanada iyo dhagarta dadka qaar aad kala kulanto waxay ka dhigtay qof taxadarkiisu badan yahay mar walba soo jeedo lagama yaabo mar hadii lagu qiyaano mar labaad lagu qiyaano mar walba taxadarkaaga ha badnaado guuldaradu waxay ka dhigtay qof ku dadaal guusha cashirna ka qaata guuldarooyinka uu hore u soo maray qof aan guul dareysan guuleysto weligaa guusha ku dadaal hana ka caajisin dhacdooyinka kaliska ah ee kugu dhaco waxay ka dhigaan qof malihiisu sareeyo markasta hankaaga ha sareeyo fashilka guurka iyo tagida uu ka tagay qof aad jeclayd ama xiriir idinka dhaxeeyay waxay ku bartaa inaysan u joogsan qof noloshiisa la waayay qof aad kala tagteen qof aad kala weysan weligaa ha u istaagin oo ha u shalaan lamaanayaasha ku haween inay qalgalaan ama ay dhisaan guur islaam ah waana ka doorsanaanta zinada iyo macsiyada oo hagaajida uba tarbiyadooda toosan waa suuragal in guri lagu dhiso hal maalin ama hal maalin barkeeda ha yeeshee ilaalintiisa waxay kugu qaadataa intii cimrigaaga ka dhiman haddii maanta naag lagu guuriyo oo ciddaada kugu qalqaaliso oo aad guursato waxay qaadanaysaa waqti inta aad kala qabsanayso aad baranayso naagtaasi oo lagu soo guuriyo waqti ay kugu qaadanaysaa wax la raadi waxa ugu badan oo kaa lumay waqtigaaga ka faa'iidayso waxaan kula talinayaa ha u noqon waqtigaaga maxbuus wax la tacbado waxa ugu mudan waqtigaaga ha u noqon maxbuus waqtigaaga ka faa'iidayso wixii horey kaaga lumay dib ha u laaban oo horey u socod waqtigaaga ka faa'iidayso